geesay. munaasabadan oo ka dhacday hoolka weyn ee shirarka ADC isla markaana ay ka soo qayb galeen fanaaniin siyaasiyiin odayaal dhaqameedyo malaaqyo ugaasyo waxgarad kale ayaa gebi ahaanba halkaasi waxaa looga hadlay sidii markaasi loo samayn lahaa ama loo dhaarin lahaa malaaqyada iyo ugaasyada ee matalaya 6 gobol ee koonfur galbeed ee Soomaaliya waxaana isla markiiba hoolka weyn ee shirarka ADC-da lagu dhaariyay malaaqyada iyo ugaasyada matalayay gobolada koonfur galbeed ee Soomaaliya ee haatan la doonayo in loo sameeyo dawlad goboleed koonfur galbeed ee Soomaaliya waxaana ugu horreynna halkaasi ka hadlay siyaasiga Maxamed Aadan Farkeeti oo sheegay muhiimadda ama baahida loo qabo in la gudo galo dhawaan sidii loo soo dhamayn lahaa maamul sameynta koonfur galbeed ee Soomaaliya fadhigan geeguna fadhiin way qayb ku hayaan safarkii dheer ee una haganli oo la kamir dhaliyay rabitaanka shacabka wal kuwiin majal geegana guulanka teegina munaasabadan geegana suqoyni walilanka taagalay in la gadaali xubnaha golaha odayaasha kaasoo qiib ku lamada golo oo dastuuriyan aansixinay geega maylaraan fadhiina dadka hortin fadhiyaan waa odayaashii dhaqanka oo ku jeedan 6 gobol koonfur galbeed waxaana durbadiiba la gudagalay sidii markaasi loo dhaarin lahaa malaaqyadii ku sugnaa hoolka weyn ee shirarka ADC-da waxaan ku dhaaranayaa magac ilaahay in aan diinta islaamka hormeeyo dastuurka dalka dowladgoboleedka koonfur galbeed iyo qawaaniinta dhowro hilka dhiidaariyey in aan sidaacada uguto maga ilaahay ku dhaartay wallahi intaa kadib ayaa fanaaniinta Hargeysa iyo koonfur galbeed ee Soomaaliya waxay halkaasi ku soo bandhigeen heeso wadani ah oo soo jiitay dareenka dadkii ku sugnaa hoolka weyn ee shirarka kadib markii uu soo dhamaaday munaasabada ayaa telefishinka caalamiga ee Royal waxa uu su'aalo weydiiyay ama fikirada ay ka qabaan dadkii iyagu dhaartaasi ka qayb galay ka warnaan maanta dhaartan ka dhacday magaalada ADC wallahi maanta aad oo farxani anigoo 6 gobol dhisay galbeed waxaan go'aansan beesha biimo waxaan taageerin gobolka 6 gobol taageer intii wallahi ahna أنا تاجرنا ودبت يوجدها وشوكا محل رجنا إحنا تاجرنا. رجلا أكيد قبضت هالكار إن ما مكاسو يرجع معيتها. والله رجلا قالنا بخل كيو بخل. هذا الدولة هالكار كسب بعض. أو فرح سنة. الدولة محمد باخنا إن تاجر عن لحظة قبل أو كفر قلبه. وحنا حسينا مذهبينها يو الوزارة يو رئيس البرلمان كإن تقدر المتارين. كل وين وإلى أكيد سنة كوين أنا قاعد أتمنى هدي عن لحظة قبل كونفور قلبنا كوين. waxaan caalamka horta u sheegaynaa in aan ku dhex jirno gabagabadii mannihin marxaladaha anagii aan ugu talagalnay ee dawladda aan ku dhisaynay baan maanta ku dhex jirnaa kaasoo ay tahay cidna aan waxba ugu dhimaynin ee masiirka shacabka uu naga dalbaday aan ku shaqaynayno waxaan u sheegaynaa dawladdanada dhexe مسؤوليين تم مدحوينها رئيس الوزراء يحل دبانة أنت مسؤولة إن يكسر قيب قاطان أو أي قرب كسيان شعبك
shacabka wuxuu raba in la maro dastuur qaramada midoobay ururka IGAD iyo caalamkoo dhan gabi ahaanba iyo dawladda dariskana waxaan u sheegaynaa ama ka codsanaynaa inay garab nagu siiyaan dadkaas basiirkooda u soo halgamayay muddada dheer oo doonaya inay dawlad goboleed koonfur galbeed ee 6 ay koobaan. maanto waxaan u taagnaynay daartii golaha guurtada ee koonfur galbeed Soomaaliya waana ku guulaysanay. waxaan intaas ku darayaa international community-ga dawladda federaalka ee Soomaaliya urur goboleedka IGAD inta danaynaysa maamulka Soomaali galbeed koonfur galbeed ee Soomaaliya waxaan leenahay in ay nagu gacan siiyaan dadaalku aan wadna ee federaalka ah in ay nagu gacan siiyaan intaasaan codsanayna wabillahi tawfiiq.